lagu magacaabo application-kan wuxuu ka caawin doonaa haddii si lama filaan ay kaaga baxaan sawiraantaadii, muuqaaladaadii iyo documents iyo waxyaabo kale oo badanba. application-kan si aad ula soo download gareysid application-kan waa free. waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store-kaada aad kala soo degi kartaa. qaybta searching-ka ee wax laga raadiyo waxaad ku qoraysaa Recycle Master aad ku qoraysaa. Recycle Master aad ku qoraysaa. application-ka markaad la soo degtid waad furaysaa application-ka markaad soo furtid si tan ay ku soo furmi doonaa. si aan waxyaabo badan aan ugu ogaano application-ka waxaad soo furaysaa calaamadan saddexda dhibcood aad soo furaysaa. kadib waxaad ka dooranaysaa setting aad ka dooranaysaa. setting markaad soo furtid waxaanu ka baran doonaa application-ka waxyaabaha inoogu muhiimsan aynu ka baran doonaa. waxaad soo furaysaa file type to recycle. waxay ka dhigan tahay faylasha aad u baahan tahay in lagu keediyo meeshan aad soo furaysaa. markaad soo furtid file type-ka waxaad jeega saaraysaa waxyaabaha aad u baahan tahay in recycle bin lagu sameeyo ama dib lagu keediyo. imageska ka mid ah, videos, audio, documents iyo application. Others-ka waxa waaye tusaale ahaan browser aad application kala soo degtay APK ayuu noqonayaa. APK-ga ayaa laga wadaa marka others-kan APK-ga ayuu soo hoos galaya. marka intaano idil midkaad u baahan tahay in lagu keediyo ayaad jeega saaranaysaa. kadib waxaad ku soo laabanaysaa qaybta hoose auto clear. waxay ka dhigan tahay application-ka tusaale ahaan 1 week haddii aad saartid, weegaas haddii la gaaro wixii uu keediyay oo idil ayuu si automatic ahaan u delete doonaa. marka meeshan off ka dhigo, waqti dhan ay iska saareen. haddii aad jeceshahay waad saaran kartaa 90 days, 30 days iyo 1 week. haddii aad u baahan tahay off waad ka dhigi kartaa. qaybta setting waxay noogu muhiimsan labadan shay ee noogu muhiimsan. tusaale ahaan haddii aad u baahan tahay application-ka color-ka waad ka bedeli kartaa. application-ka saddexda dhibcood soo fur, qaybta themes-ka ka dooro. 6 color ayaa ku jirto, midkaad u baahan tahay aad dooranaysaa. tusaale ahaan anada midkaan ayaan dooranayaa, save ayaan ku dhufanayaa. waad u jeedin color-kii application-ka wuu isbedelay. marka aynu ogaano application-ka inuu shaqeynayo in kale aynu ogaanayna waxaan ka dileedayaa qaybta gallery-ga video iyo waxaan soo dileedayaa sawiraan. marka qaybta waxaan aadaynaa gallery-ga aynu aadaynaa. waad u jeedin guys waxaan imaaday qaybta gallery-ga. waxaan ka bilaabayaa muuqaalkan ayaan waxaan ku sameynayaa delete ayaan ku sameynayaa. sidoo kale waxaan delete gareynayaa sawiraantan ayaan delete gareynayaa. waad u jeedin guys waan deleeday labadii sawir iyo muuqaalka waan deleeday. waxaynu ka raadinaynaa sawiraanteeni application-ka aynu ka raadinaynaa. Recycle Master-ka aynu ka raadinaynaa. aynu aragna marka application-ka inuu shaqeynayo in kale aynu ku kala ogaanaynaa. waad u jeedin guys qaybta sare markaad fiirisin image wuxuu inoo keediyay 2 image ayuu inoo keediyay. markaan soo furo qaybta image-ka waad u jeedin ayaan filayaa. sidoo kale hal muuqaal uu inoo keediyay waa muuqaalka aynu soo delete gareynay. qaybtan hoose markaad fiirisid xitaa wuu ku tusayaa recent removed, kuwii hadda ugu dambeeyay oo la remove gareeyay just now ayaa ku qoran qaybta hore. marka application-ka wuu shaqeynayaa guys. haddii aad u baahan tahay inaad soo celisid waxaad soo furaysaa tusaale ahaan sawiraantan ayaan u baahanahay inaan soo celiyo. sawirka ayaan ku dhufanayaa qaybta hoose remove. si toos haddii aad ku dhufatid dib dambe uma arkaysid. recovery ayaan ku dhufanayaa. sawiraantii hadda sidaan ayaan waxaan ugu sameeyay recovery ugu sameeyay. marka sidoo kalena muuqaalka waxaan ku sameynayaa recovery ku sameynayaa. waxaynu dib ugu laabanaynaa gallery-ga aynu dib ugu laabanaynaa si aynu u aragno. waad u jeedin guys wuu inoo soo celiyay. sidoo kale telefonaadkii ugu dambeeyay ee shirkadda soo saartay Samsung recycle bin ay leeyihiin si active ah. uma baahno inay soo degsadaan application. haddii aad wadatid A10, A20 iyo waxyaabaha la halmaala ee ugu dambeeyay telefonaadka smartphones-ka waxaad soo furaysaa qaybta gallery-ga aad soo furaysaa. kadib qaybtan waxaad ka raadinaysaa ee kore mo ayaad ku dhufanaysaa.